reerkaa waxa gashay idadii baa markaa lagu soo dhaweyn jiray imika wuxuu noqday qabiilkii wax la isku magaranaysa isku tacadiyo laakiin bari wuxuu ahaa xidhiidh dadka isku soo dhaweeya ayuu ahaa ilaahay waxaan ka barnay subxaana wa tacaala inaynu caruurtaas iyo qoyska aan sameynna waxay u baahan yihiin qaran bay u baahan yihiin ummadda wax taraa waa qaran meeshii aan nidaam jirin dhibaata jirta imika beelaha bariga ee dagaalanaya dhibaato weyn waxa weeye waa nidaam daro dawladii baan gaarin rule of law-gii baan gaarin marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in dawladda la dhaafiyaa sheekh oo bari loo gudbo hadda wixii ka dambeeya oo khayraadka loo sinmaa oo siyaasadda loo sinmaa oo aynu sameyno mujtamac wax ku kala qaata aqoon iyo garasho iyo xilkasnimo ee aan qabiil aan lagu kala kicin anuu safar tegi maayo waxaan tegayaa waan u baahnay nimanka la taliyaha madaxweynaha waxaa imanaya maanta ugaaskii guud ee muxuu ahaa samaroon markaa ugaaskaasi waxaan filayaa inay u yeedheen qoladan ka soo horjeeday saaba qaybsiga markaa sheekii madaxweyne waxaan isku weyeen inuu yimaado dee dadku waa la wada hadlaaye mataqaadna loo sameeyo xalinta waxaan isku weyeen markaa halkan buu ii soo diray markaashii taxi message inuu si odaynimo ah oo nabadgelya markuu yimaadana uu hadlo oo aanu qolooyinka ishaya cidna aanu raacin isagu nin guudoo kale au noqdaa ayaanu hadlay markaa xalay 10 barkii baa laygu yidhi war baa yimi waxaa la yidhi ma soo geli karo ugaaski marka halkii loo yacad maxaa gori cawl ayaa la isku dul taagan yahay marka waxa adigu iskaga halkanoo daadaa u taliya arrintaas yaa dhibaatay noo keenin ayaa meesha gurmane intaasaan u tegaya safarkeeda igu jiraa ma jire cali iyo calo waa israacayna inagu waa israacayna waa salaatu abdullah